Tobraha Chelsea Maurizio Sarri ayaa tilmaamay in goolkii Harry Kane uu ku dhaliyay rigooradii loo adeegsaday muqaalacaawiyaha garsoorka FA inuu ahaa go'aan qaldan. Harry Kane ayaa qalad kala kulmay goolhay Kepa waxaan lagu abaalmariyay rigoore ka oo noqday goolka kaliya ee kooxda Tottenham kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Chelsea. laakiin Sarri ayaa ku dooday in marka uu daawaday muuqaalka ee duubtay kaamirada kooxdiisa Chelsea in Harry Kane offside ku jiro intii aan qaladka lagu galin isla markaana ay ahayd inuu rigoore noqon maadaama sheekada offside ahayd. Tababaraha kooxda Tottenham Mauricio Pochettino ayaa dhankiisana ku biiray ra'yiga ku aadan in eedeynta loo jeediyo muqaalacaawiyaha garsoorka FA inkastoo kulankii Chelsea faa'iido ka helay wuxuu ku dooday in uusan ku faraxsanayn isticmaalka aaladan. Mauricio oo saxaafadda la hadlay markuu soo dhamaaday kulankii FA Cup waxa uu yiri dhowr daqiiqo kor waxaan daawaday muuqaalka kaamirada waxa uu ahaa offside cad kaamiradu waxay la sineed Harry Kane wuxuu ahaa offside. Sarri ayaa calaamadaha ku eedeeyay inuu tilmaamin offside ka hor inta aan Harry Kane loo dhigin rigooradii lagu abaalmariyay. Xaqiiqdii muhiim ay ahayd in calaamaduhu orday saameyn weyn ayuu yeeshay difaaciga aniga ma filay in garsoorayaasha Ingiriiska isku awood yihiin inay isticmaalaan aaladda VAR. Sarri ayaa eedan u soo jeedinayay garsoorka haddii aanad hubin systemka waxa waajibku waa inaad kubadda raacdo ilaa ficilka ugu dambeeya go'aamiyo laakiin wuu istaagay kubadda muusan raacin difaaciga waxa uu ahayd offside. Anigu ma ogi goolhayaha laakiin waxaan hubaa daafacyada laakiin Sarri ayaa wax lala amaka ku tilmaamay in aanu Premier League ka jirin VAR balse tartanka Carabao Cup jiro wuxuu yiri iyagu waxa waajibku ah in hanankan darsaan waxa aad amakaagu ah in Premier League aysan ka jirin VAR isla markaana oo hananku ku jira Carabao amakaaga ayaa aniga ciyaartooyda iyo sheekadu nagu noqotay garsoorku waxa uu sameeyay. Tababaraha Tottenham Pochettino ayaa isna tilmaamay in aan ku qanacsanayn adeegsiga muqaalacaawiyaha anigu ma jecel VAR maanta waxaan helnay faa'iideysi laakiin kadib daawashadii koobka dunida iyo horyaalada kale sida La Liga waxaan arkay in qofna ku faraxsanayn ilaa maalintii koowaad ay bilaabeen in isticmaalo inaad faa'iidadiisa heshaa way fiican tahay laakiin kuma faraxsani inaanu ciyaarta sidaan ugu guuleysanay kulankaas ayuu yiri Pochettino oo kooxdiisa gool kaga adkaatay Blueska.